بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نقول يا شرف أي أطهى يمدر السومالي لان بوكر للصوبان دقاي وعن إسلانا هاي وهو يبقى غلط دونا داعية تسوكر يسير صحافة كتشرته يكون هنا أضياء شاهانا سيدو الشيء قد المر إلى قالك الروحاني يقولون اللغة باهي كل يوحل قراء آليات بوفي عنده تضبطا أيا كفايدي سنكرة تضبطا بكفايدي سندون أحمد سعيد يعني يقول إنت نقاني ميرا راسد حيلا واتنسان وافري لواتنسان نضوب السومالي لان انتي اي جرتي بدنا وامش نقاني لكن وحان هو أنا شيء إن محمد حاج إبراهيم عقال مرة وياي ويوم سايس وقت يدي هو مشدي حالتنا كواتكي إنه نقضوا أفيام لكن أحمد سعيد عقديدي ونقبل بوسكري سلام قياسيو عبد إدريس تعالى الله نحرستي waxaan kaloo runtii isleeyahay marar fara badan iyo waqti fara badan oo uu wax diinayay ama war diinayay waxaa ka muuqatay dhexdhexaadnimo waxaan xusuustaa maalintii maxamed xaaji ibraahim cigaal anigoo wasiir u ah ay golaha wakiilada oo maxamuud xaashi ayaa hogaaminayay mucaaradka kacdoonka maxamuud xaashi ayaa hogaaminayay anigu markaa wasiir baan ahaa habeenkii oo dhan ayaanu isku daynay inaanu wax dhaqdhaqaajino maxamed xaaji ibraahim cigaal aroortii shiraan caadi ahayn baanu qolo isugu nimid 9 wasiir iyo isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaanu go'aansanay bal waxaa shirka jeer garaynaya oo isaguna meesha fadhiya oo si mayal adag ugu haya oo ay ka muuqato inaanu marna xagga iyaga soo eegin madaxtooyada cabdulqaadir jirde oo guddoomiye ku-xigeenka koowaada قيمة وحنا دبلوماسيها آلي سوء آنس لبن أو أنشعين إن مردي سلقالو مرة غالية مركي أو فراي شركي أيو أبو دول يوقف طبعا عبد القادر يبقى يسكو صوبح صدي قوله وكيل الله يعيقا عقال وحنقو حصوصتا إلين هجامية مالنتا مركان يسوون الجولي وزير هذا حان صوب حذي إن هذا هالقف لستيري حبيك هالقف لستيري هاي بصوب حذي مرة وحال لها وايسكو نك تو نك حبيكي aniga iyo darawal iyo ninka la yiraahdo gees hal min baan u dhoofinay cabdulqaadirna waa garanaya maxamuud xaashi waa garanaya xigaa waxaan ku xusuustaa maalinta inaanu rag badani soo jeediyeen golaha aan qabsano golaha aan qabsano laakiin runtii ninka keliya ee naga diiday maxamed xaaji ibraahim cigaal oo yiri dimuqraadiyadda meel kaga dhacay dimuqraadiyadda yaan meel kaga dhacayna wuu ogolaaday in impeachment ku socdo uu noo dardaarmay intay socotay sababta keentay
markaan taariikhda dib u tuuro maskaxda wuu nala dagaalamay markaa waxaa ka hari karayay sharciyan haddii impeachmentkaasi sii socdo madaxweyne ku-xigeenka oo daahir yaale ah ayaa hari karayay sharciyan markaa isagu inuu madaxweyne ku-xigeen doorto oo dabeedna golihii uu galo wasiiro cusub oo uu soo magacaabo wuxuu la dardaarmay daahir yaale wuxuu ku yidhi war haddaanu aniga ragga kale meesha ka baxno waaba dhici kartaa kawsalkaanu fadhino ragga aan meesha kugu keenay haylaawi ragga goobta kula jooga haylaawi qofka waa in wuxuu laga faa'iida ina riyaale inuu madaxweynenimada qabto oo council of ministersku taageero maxaa keenay waxaa keenay inuu ina maxamed xaaji ibraahim markuu xanuunka dareemay uu noo yeedhay ina jirdina maalintaa waa nala fadhiya inuu noogu yeedhay qadar noogu sameeyey gurigii hore ee ingiriisku ka tegey ee taliyaha ciidanku ku jiri jiray ayuu noogu yeedhay ina jirde markaa waxaan cabdiqaadir jirde waxaa maye nin maxkamadaha ayaa isaguna ugu yeedhay wuxuu dareemay inuu xanuunsanayo rag uu soo guray oo ilaa 12 wasiiru noogu yeedhay wuxuu ku yidhi hadday taydii noqoto habeen kasta marka aan sariirta jiifo dad badani waxay ku walaahobaan ma soo degay laakiin mararka qaarkood waxaan israahdaa talo waaga ma kuugu beriysa hadday raggii uu ku halqabsanayay maalinta cabdiqaadir jide koobu ka ahaa gees labu ka ahaa oomanin in la yidhaahdo oo reer boorama wasiiraha war hadday tayda noqoto yaa nin dibadda joogaa idiin soo gelin oo idiin reer hebelayne ninkaa dabagala buu yidhi madaxweyne ku-xigeenkii oo nahor fadhiya waxaan isleeyahay axmed siciicige inuu sidan habboon wax u soo dhigo dee xaggii hooyada iyo xaggii aabbahaba way isaga yimaadeen madaxweynihii hore waxaan isleeyahay waayo aragnimadu ma liidato qof kasta oo reer somalilandina dalka waxa uu soo galay haddaan iyar dib u laabto cabdiqaadir jirde ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu soo dhaweeyey silaayuu soo dhaweeyey waa qoslayaa cabdiqaadir gooruu fasaxay silaayoo dibadda ka imaanayuu soo dhaweeyey council of ministerskaanu fadhinaa waa naloo sheegay warkii waxaa la yidhi cabdiqaadir baa golihii fasaxayoo wuxuu u fasaxay in la soo dhaweeyo silaayoo ka imanaya abudabi london silaaya waxaan maraya inuu meesha tagay cabdiqaadirna goobta tegay wadin maalintii ku xigtay ayaanu addis ababa u raacanay aniga iyo axmed yuusuf ducaale iyo ninka la yidhaahdo gees maalintaa wuxuu yidhi ninka aan garan waayey ee igu jiraaba ee daba socdaaba soo waa cabdiqaadir markay diyaaraddu nala soo fadhiisanaysay dhulka hadda balaaga qofka siyaasigii siduu isu bedelo diyaaraddu markay dhulka nala soo fadhiisanaysay kursi ka dambeeyaan fadhiyay axmed yuusuf ducaalo oday weyn ahaa isagiyo gees yaanu nin markaa dhallinyaraabaa ayuu diyaaraddii intuusan nala ka furin diyaaradda camuudi baa na soo siiyey odaygan hantida loo intaan diyaaraddii nala ka furin ayuu sidaa luqunta wuxuu uga qoraansaday daaqadda dadkii meesha safnaa dabeedna wuxuu ku arkay cabdiqaadir jiddo maalintaana taagnaa markaasuu yidhi waa ninkii miyuu isdhaqdhaqay mise wax kaluu inoo ka jeeda madaxweyne maxaa ninkii cabdiqaadir markaa dee baratokoolka guddoomiyihi oo maqanoo halka hor u fadh ninkii waa taaganya bal arrinteedii waxbaan uga noqonaya waa miduu mar hore noo sheegay
cabdulqaadir iyo waxaan umaleeyaa madaxweynuhu inay isu yimaadeenoo ay aad u wada hadleen waa qiyaasaya guul baan idiin rajaynayaa axmed siciid xigana waxaan leeyahay sii jiro joog dadka kalena waxaan leeyahay ka ku dayda anigu maadaama aan wasaaraddii warfaafinta iyo wacyigelinta ahay waxaan moodayay dee madaxweynaha mustaqbalku inuu ilaa 500 iyo meelaha qaadayo iyo madaxweynayaashu laakiin xukuumaddiina waa joogtaa wasiirkii maaliyadduna waa joogaa madaxweyne ku-xigeenkiina waa joogaa aniguse waxaan qaadayaa 100 buug. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.